بسم الله السلام عليكم الصلاة عشان أصحابتي القرية وحردينا في عندي سوري هذا سيرة الدورشة أود الدورشة هي نولشينا سيد دورشوين كان يرير معلم والبانسمين إن أقابين هي نولشينا نوقت هاي إن نولش هذا ما أنت أي سنة نصيب بل سيد هاي دورشوين يرير أو أسمي سيشالي قف كستا أو أدمانت أركيسيد نولش أو كنولي هاي ونتيجة كده لتي جوانا ومر وخاتي هدي أتبدلشيد دورشة ما أنت بري واحد اسكو بدل دونتا سي أنا مريسين كريم سؤال صحدا هاي لو باهي نفط علينا ويديسها waxay tahay si doorashada aan qaatay u sameysay qofnimadeyda una saameysay noloshayda wax kasta oo hadda haysatid nolol walba hadda aad ku nooshahay waa go'aan aad mar u qaadatay noloshaada ha yaraado ama ha weynaado sidaas awgeed saaxib ma ku baraarugsan tahay saameynta weyn ee doorashada nolosheena ay ku leedahay kusoo dhawaada videogan maanta kaas oo aad ku fahmi doontaa sirta doorashada ee nolosheena ay ku leedahay saameynta wanaagsan iyo midda taban ee doorashada nolosheena ay ku leedahay kusoo dhawaada videogan maanta waxaa jiray wiil dhalinyaro Soomaaliyeed kaasoo lahaa riyo aad u weyn hami weyn ee nolosha laakiin waxa uu lahaa hal dhibaato taasoo ah dibdhigista bari ayaan bilaabayaa baridii waxay isku bedeshay toddobaadkii waxay isku bedelay bilooyinkiina waxay isku bedeleen sanado maalin kasta wuxuu dooran jiray inuu bari bilaabo doorashadaasi ah inuu bari bilaabo uusan maanta bilaabin ayaa waxay noloshiisa ku dhigtay dib u dhac aad u weyn dib u dhacaasi wiilkaasi noloshiisa ku imaaday ee waxa asal u ah doorashadiisa qaldaneed ee maalinlaha ah taasoo asigu ku dooran jiray inuu bari bilaabayo dadka kale ee mar hore go'aanka qaatay doorashadana saxnayd wuxuu arkayaa saaxiibadiisa oo guuleystay asxaabtiisa oo guuleysanaya sababtoo iyagu waxay iska saxeen doorashadoodii asagana waxa uu iska qaldayay doorashadiisii ogow saaxiib hadba doorashada haddii aad dib dhigtid waxaad dib dhigaysaa mustaqbalkaaga haddii aad doorashada soo hormarisidna waxaad soo hormarisay mustaqbalkaaga iyo furihii iftiimin lahaa noloshaada maalin maalmaha kamid ayaa waxa uu la kulmay wiil saaxiibkiisa ah kaasoo gaaray heerka noloshiisa uu rabay markaas ayuu waxa uu weydiiyey saaxiib sidee ayaad ku gaartay halkan sideed ku guuleysatay saaxiibkiis ayaa waxa uu ku yiri saaxiib anigu ma sugin dhiirigelin waxaana sameynayay doorashooyin sax ah oo maalinla ah maalin kasta doorashooyin sax ayaan qaadanayay oo aan sameynayay markaas ayuu wiilkii si sax u fahmay noloshu inaysan ahayn wax adiga kugu dhacaya ee balse ay tahay reaction-ka iyo doorashada aad ka bixisid ficilkii kugu dhacay qof kastoo dhalinyaro ah maanta waxa uu doonay isbedel saaxiib isbedelku imaan maayo adigoon bedelin doorashadaada hadba wixii aad dooratid baa noloshaada maamuli doona oo hagi doona sidaas awgeed doorashada ka taxadir oo ilaali waxaad dooranaysid maalin kasta macnaha doorashada waxay tahay go'aan adag kaasoo si miir leh aad u qaadatay adigoo miirkaadu taam yahay kaasoo noloshaada saameyn weyn ku yeelan doona wax weyn ka bedeli doona noloshaada awoodda doorashadu waa kartida uu qofku u leeyahay inuu bedelo jihada noloshiisa isagoo go'aan sax ah qaadanaya maalin walba taasoo ku horseedaysa natiijada oo ah waxa ka dhalanaya doorashooyinkii joogtada ah ee aad sameeysay maalin walba inaad saxdid oo hagaajid doorashooyinka maalinlaha waxa kow ka ah inaad qaatid mas'uuliyadda naftaada oo ah inaad aqbashid in noloshaada aad adiga mas'uul ka tahay hadba doorashadana ay qaabeynaysid mustaqbalkaaga iyo noloshaada falsafadii hore iyo islaamkuba waxay muujinayaan in aadanuhu uu leeyahay ikhtiyaar qarnigii hore ilaa iyo maanta cilmi nafsiga casriga waxa uu cadeeyay in go'aanada yaryar ee maalinlaha ah ay dhisaan shakhsiyadda iyo mustaqbalka qofka qoraalo fara badan oo ku saabsan cilmi nafsiga iyo horumarinta shakhsiyadda ayaa tilmaamaya in decision making-ka awoodda go'aan qaadashada uu yahay xirfadda ugu saameynta badan ee nolosha qofka dadka guuleystay ma ahan kuwa leh nasiib badan balse waa kuwa si joogto ah u sameynaya doorashooyin yaryar oo sax ah doorashooyinkaasi yaryar oo isku aruura ayaa saameynteedu waxay noqon doontaa natiijo aad u weyn cilmi baarisyo laga sameeyey jaamacado caalami ah ayaa waxay muujinayaan in go'aamada yaryar ee maalinlaha ah ee uu qofku u qaato ayaa waxay sameeyaan in ka badan 90% natiijada nolosha mustaqbalka ee qofka dadka leh nidaam go'aan qaadasho oo cad waxay 2 ilaa 3 jeer ka guul badan yihiin kuwa aan lahayn oo labalabaynaya oo aan lahayn awoodda go'aan qaadashada sidoo kale dib u dhigista procrastination waxay si toos ah ula xiriirtaa hoos u dhaca guusha shakhsiyadeed guul walba aad gaari lahayd noloshaada waxaa dib u dhigaya procrastination-ka dib u dhigista sirta doorashada saaxiib ogow noloshaada ma ahan hal go'aan oo weyn waa kumanaan go'aano yaryar oo isbiirsaday ayaa waxay sameynayaan noloshaada inaad subaxii soo kacdo ama aad seexato inaad wax barato ama aad wax daawato inaad dadaasho ama inaad dib u dhigto inaad salaada waqtigeeda ku dukatid ama inaad iska dhaafto
mid kasta oo doorashooyinkani ka mid ah waxa uu dhisayaa ama uu burburinayaa noloshaada iyo mustaqbalkaaga. haddii ay doorashooyinkaaga saxan yihiin mustaqbalkaagana wuu saxan yahay oo uu fiicnaan doonaa, balse haddii doorashooyinkaaguna ay khaldan yihiin mustaqbalkaaguna wuu burburayaa oo uu dumayaa. dad badan waxay naftooda u sheekeeyaan waxaan rabaa nolol wanaagsan, mustaqbal noocaas ayaan rabaa, inaan guulaysto ayaan rabaa, heer inaan gaaro ayaan rabaa. laakiinse markaad fiirisid doorashooyinkooda ma samaynayaan doorashooyin wanaagsan. islaamkuna waxa uu ina barayaa in qofku uu yahay waxa uu doorto oo keliya, balse uusan ahayn waxa uu rabo. aayad qur'aan waxay ilaahay ku leeyahay in allaha la yughayyiru ma biqawmin xataa yughayyiru ma bianfusihim. ilaahay ma bedelo xaaladda qoom ilaa ay ka bedelaan waxa naftooda ka ahaaday gudahooda, doorashooyinkooda, fikradahooda. haddii aad doonaysid noloshaada inaad isbedeshid doorashooyinkaaga bedel. wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca wa anna sacyahu sawfa yuraa. hadba wixii aad u dadaashid unbaad helaysaa. doorashadaada iyo dadaalkaaga ayaa dhisaya mustaqbalkaaga iyo noloshaada. sidaas awgeed doorasho wanaagsan oo dadaal lagu daray waa guul iyo mustaqbal ifaya ee noloshaada. islaamku waxa uu xoogga saarayaa mas'uuliyadda qofka naftiisa, xulashada saxda ah ee doorashooyinkeena maalinlaha ah, ka fogaanshaha xumaanta, samaynta camal wanaagsan oo joogto ah, faa'iidooyinka awoodda doorashada. shakhsi ahaan waxaad ka helaysaa kalsooni aad u saraysa, xakamayn nololeed iyo iska warqabid, naftaada qiimaheeda oo siyaadaya oo kordhaya, guul joogto ah, horumar iyo xirfado, camal wanaagsan iyo nolol ka fog qoomamo. maskax ahaan diirad saaridaada oo hagaagaysa, niyad degan iyo xasilooni. hadda waxaan kula wadaagay 5 talaabo oo ficil ah oo aad samayn kartid si aad u hagaajisid doorashooyinkaaga maalinlaha ah. kow, bilow inaad ka fikirtid ka hor intaadan dooranin. waqti yar sii naftaada si aad uga fikirtid doorashooyinkaaga maalinlaha ah. rogrog oo qiimey, kadibna dooro midii kugu habboon oo kuu saxan, kuu wanaagsan. hadda qor 3 go'aan oo noloshaada bedeli kara, saameyn weynna ku yeelan kara mustaqbalkaaga. qodobka 3aad, ka fogow dib u dhigista, waxa uu burburinayaa, baabi'inayaa mustaqbalkaaga. qodobka 4aad, samee jadwal maalinle ah. qodobka 5aad, la saaxiib, la soco dadka leh go'aamada adag. qof walba waxa uu doonayaa nolol wanaagsan, laakiin ogow, nolol wanaagsan kuma timaado keliya rabitaan. noloshaasi wanaagsan waxay ka timaadaa doorashooyin yaryar kadib. adiga ayaa maanta dooranaya inaad horumar samayso ama isla meeshii inaad joogto. sidaas awgeed doorashada noloshaada adiga ayaa iska leh. ogow, mustaqbalka lama qoro beri ee waxa la qoraa maanta. mustaqbalka waxa iska leh qofkii maanta isku diyaariya. go'aan walba hadda aad qaadanaysid waxa uu saameynayaa noloshaada beri. ogow oo ku baraarug, ka fiirso go'aamadaada maalinlaha ah. SE community ahaan waxaan aaminsanahay in dhalinyarada Soomaaliyeed kaliya ay yihiin kuwa jahwareersan oo u baahan kaliya in la hago. saaxiib, halumin mustaqbalkaaga, ha baabi'inin noloshaada. ku soo bir SE community, waxaan ka caawinaynaa maskax dhisan, hadaf cad, akhlaaq wanaagsan, xirfado casri ah iyo aragti fog ee nololeed. haddii aad rabtid doorashooyinka nololeed inay ku hagaagaan, ka bilow doorashada koowaad ee maanta oo ah inaad ku soo birtid SE community. waa doorashada ugu wanaagsan ee noloshaada hadda aad qaadan kartid. ku soo bir oo subscribe saar channelkan, nagu soo bir SE community. waa doorashada koowaad ee ugu saxsan noloshaada. waxaan ku ballan qaadaynaa inaad ka shalaynin ood ku faa'iidi doontid doorashada koowaad ee noloshaada aad u qaadatay maanta. haddii noloshu ay tahay natiijooyinka doorashooyinkaaga, doorashooyinka maanta aad samaynaysid ma ku horseedi doona nolol aad ku faanto ama mid aad ka qoomamaysid? saaxiib, inaad nagu soo biirtay waa doorashada ugu saxsaneed ee maanta aad qaadatay. waxaana kugu hambalyeynaya inaad qaadatay doorashada ugu saxsaneed ee maanta. waxaana ku rajaynayaa doorashooyinkaaga soo socda noloshaada inaad si fiican uga fikiri doontid intaadan qaadan ka hor. aad baad u mahadsan tahay. waxay noo ballanaa videogan insha Allah. subscribe saar, like saar video una share garee saaxiibkaaga ama walaalkaaga kaasoo u baahan inuu iska saxo doorashooyinka noloshiisa. waxay noo ballanaa videogan insha Allah. kulanti dambe oo xiiso leh. maca salaam.